wasiirada gaashaandhigga ee dalalka Faransiiska iyo Spain ayaa maanta booqasho hal maalin qaadanaysa ku soo gaaray wadanka Jamhuuriyadda Djibouti. wasiirka gaashaandhigga Faransiiska Harvey Marin iyo wasiirka gaashaandhigga dalka Spain haweeneyda la yiraahdo Karima Chacon ayaa kadib markii ay soo gaareen maanta dalka Djibouti waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Djibouti ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka arrimaha gudaha Yaasiin Cilmi Buux iyo wasiirro kale. kulankaas waxyaabaha looga hadlayay oo socdaalka labada wasiir ee gaashaandhigga dalalka Spain iyo Faransiiska uu ahaa sidii loola dagaalami lahaa kooxaha burcadbadeedda Soomaaliya oo iyagu dhibaatooyin fara badan u geysta maraakiibta iyo doomaha isticmaala marinka gacanka cadmeed, taasi oo walaac fara badan ku abuurtay guud ahaan wadamada ay maraakiibtoodu isaga kala gooshaan marinkaasi. labadan dal ee wasiiradoodu ay maanta soo gaareen dalka Djibouti ayaa waxay sheegeen in iyagu ay hormuud ka yihiin qorshe iskaashi oo la doonayo in wax looga qabto burcadbadeedda Soomaaliya iyo sidii loo madayn lahaa xuduudda wadamada Midowga Yurub iyo kuwa ku teesan gacanka cadmeed ee haatan ay dhibaatadani ka taagan tahay. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Faransiiska oo markii ay ka soo baxeen kulanka ay maanta la qaateen madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti la hadlay warfidiyeennada ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkooda Djibouti waxaana uu yiri d'une part j'ai profité de cette occasion waxaan ka wada sheekaysanay madaxdan Djibouti aynu la kulannay sidii looga hortagi lahaa burcadda Soomaaliya oo la iskaga kaashan lahaa. waxaan hor dhignay in dalka Djibouti laga sameeyo saldhig ay yeeshaan ciidamada wadamada Midowga Yurub. sidoo kale waxaan ka sii wada sheekaysanay qorshaha shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ee bisha December ka furmaya magaalada Brussels ee xarunta wadanka Belgium. grâce à la base de Djibouti puisque c'est un soutien logistique majeur. donc ciidamada la doonayo inay wax ka qabtaan kooxaha burcadbadeedda dalka Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin wadamada Midowga Yurub ayaa waxa hogaamin doona sida la sheegay dalka Ingiriiska. xeebaha Soomaaliya oo ay ka jiraan falal burcadbadeednimo oo ay geysanayaan kooxaha burcadbadeedda Soomaaliya isla markaasna ay u kaxaystaan maraakiibta ay afduubtaan biyaha cadmeed ayaa xilligan waxa ku sugan maraakiib dagaal oo ay ugu horeeyaan kuwa Mareykanka iyo Ruushka, iyadoona gaashaanbuurta NATO ay dhawaan ansixisay qaraar oo galaanaya in maraakiib dagaal ay u dirto xeebaha Soomaaliya. hay'adda IMB ee la socodka badaha adduunka saldhigeeduna yahay wadanka Malaysia ayaa sanadkani 2008 ku tilmaamtay inuu yahay sanadka ugu afduubka badnaa xeebaha Soomaaliya, waxaana kooxaha burcadbadeedka gacantooda gashay in ka badan 77 markab oo qaarkood wali ku jiraan gacanta burcadbadeedda iyo shaqaalihii saarnaa oo gaaraya ilaa 200 oo ruux. dowladda Djibouti oo ka mid ah dowladaha Afrika ee daris wadaagga laha gacankan cadmeed ayaa dhawaan shaaca ka qaaday mowqifka ay ka taagan tahay dhibaatada burcadbadeednimo ee xeebaha Soomaaliya ee walaaca iyo mashquulka faraha badan ku abuurtay inta badan wadamada caalamka gaar ahaan kuwa maraakiibtooda ay isticmaalaan gacanka cadmeed. waa kan wasiirka warfaafinta Djibouti Cali Cabdi Faarax oo arintaasi ka hadlaya. dowladda Soomaaliyeed markay ka baxday kaalinteedii ay burburtay waa burburka Soomaalida. dowladda Soomaalida waxa keenay fasaxay suura geliyay in cid walba horta badeedii ay iska ballanqaysato kalluunkeegii wixii ku jiray lagu daadiyana qashinkooda lagu daadiyo. suura gelisay burcadbadeedan cusub ee soo baxday in maraakiibta badda ay ka qabsadaan ay markaa ay weydiistaan in lacag baada la siiyo taa oo run ahaan dalalka geeska iyo sida dalkeena Djibouti-ba wax u dhimaysa, waayo isku gooshadii la iska gooshayay ee badda la marayay wax weyn ayay u dhibtay, hakadna way ka dhigtay. asiraasyadii way kaceen kor ayay u kaceen, waayo badeeni halis ayay noqotay. sala ajligeed dowladda Djibouti noocani waxay leedahay argagixiso kuwii hore